Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu dooron xasan abshir jibriil oo ah hogaamiye sare oo shabaab ah iyo in ka badan 20 dagaalyahan oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose wasiirrada xildhibaanna ka tirsan golaha shacabka oo sheegay in duqeymaha Kenya ay ka geysanayso gobolka Gado ay ka dhalatay xaalad bini'aadanimo madaxii amniyaadka magaalada Muqdisho Ciise Tarabuun horeyna u sheegtay inay qabatay dawladda Soomaaliya oo lagu arkay dalka Kenya askar badan oo ka tirsan ciidanka AMISOM oo Muqdisho lagu dilay kadib qarax miino oo haleelay gawaari ay la socdeen militariga Soomaaliya oo toogasho ku dilay miinooyin dhigayay wadada xiriirsa Jowhar iyo Balcad ciidamada ammaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo gacanta ku dhigay dhalinyaro dhac ka geysanaysay magaalada Jigjiga warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah afayeenka Koongareeska Mareykanka oo sheegtay in shacabku taageersan yihiin xilka qaadista Trump hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. war ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan degmada Awdhiigle ay duqeyn ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab saraakiil u hadashay ciidanka xoogga iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in fiidnimadii hore ee xalay ay duqeyn ku dileen saraakiil iyo dagaalyahano badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeyntaas ayay sheegeen saraakiishu inay ka fuliyeen duleedka koonfureed ee degmada Awdhiigle kadib markii sida ay sheegeen saraakiishu ay ka war heleen in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan halkaas Al-Shabaab ayaa la sheegay in xilligaas ay damacsanayeen inay weerar ku soo qaadaan degmada Awdhiigle ee Shabeellada Hoose waxayna sheegeen saraakiishii hogaaminaysay howlgalkaas in duqeyntaas ay ku dileen in ka badan 20 dagaalame sargaal lagu magacaabo xasan abshir jibriil oo ahaa gudoomiye ku xigeenka qaybta jabhadda loo yaqaan ee ka tirsan dagaalamayaasha shabaab ayaa la sheegay inuu ku jiray shabaabkii lagu dilay duqeyntii ka dhacday degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose tuulooyinka hoostaga xildhibaanna iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in duqeymihii diyaaradaha Kenya ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ay abuurtay xaalad bini'aadanimo aad u daran lana soo darshay shacabkii ku noolaa gobolkaasi mas'uuliyiintan ayaa sheegay in ceelashii ay cabayeen dadkan ay burburiyeen diyaaradaha Kenya taana ay sababtay in iskaga soo barakacaan tuulooyinkii ay ku noolaayeen iyagoo naf ka soo raadiyay magaalooyinka gobolkaasi xubnahan ayaa sheegay in maalinta ka dambaysa ay ka sii daraysa xaaladda dadka ku nool gobolka Gado xildhibaan Faarax Cabdi Aadan iyo xildhibaan Haashim oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka deegaan doorashadooduna tahay gobolka Gado ayaa sidan warbaahinta u sheegay waxaa jirta cabasho aad iyo aad u weyn oo noogu timid gobolka Gado taasoo ah biilaan iyo cuno la'aan taasoo saameysay shacabka ku nool guud ahaan gobolka Gado oo biilaanta iyo abaaraha oo ugu badan tahay qax taasoo ka dambeysay duqeymihii faraha badnaa oo ka dhacay gobolka sababtayna dhimasho dunya dad iyo qax ka baxsan bilaadanimada roobkii wuu yaraa labadii xilli ugu dambeysayba duqeymo fara badan oo ciidamada darisada ay ku sameeyeenna waxay abuureen barakac aad u xoogan hanti badan baa ku burburtay xoolihii baa ku baaba'ay ceelashii baa ku baaba'ay waxay sababeen marka in xiriir qaxooti xiriir barakacyaal xoogani ay ka abuurmaan gobolka noloshii inay adkaato biyo la cabo la waayo caafimaadkii xumaado marka dadka Soomaaliyeed ee wax heli kara qof kasta oo Soomaaliya wax heli kara iyo muxuu ahaa international community ama bahweynta caalamka ee caawisa goobaha duruufuhu ka jiraan waxaan ugu baaqaynaa meeshaas gurmad degdeg u baahan tahay wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim ayaa sheegay in biyo yari ay ka jirto gobolka Gado wuxuuna dawladdu ugu baaqay inay koontaroosho hay'adaha qaabilsan biyaha
wasaaradda tamarta biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabnay inaan ma aragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii karaankeeni ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan ma aragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay ma aragtay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aad u tiro badan waaye kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo ciidamada Kenya ayaa dhowr jeer waxay gobolka Gedo ka geysteen duqeymo ay ku dileen dad shacab ah dowladda Kenya ayaa sheegtay in dalkaasi uu galay Cabdiwahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarabuun waxayna dadka ka dalbatay inay booliska ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan sawir lagu daawacay bagga Twitter-ka booliska Kenya ayaa lagu sheegay inuu yahay Ciise Tarabuun oo ah muwaadin Soomaaliyeed kaas oo la rumaysan yahay inuu Kenya tagay 24 bishan si degdeg ah u soo wargeli saldhigga booliska kugu dhow ayuu boolisku u sheegay shacabka Kenya qoraalku boolisku ku daawacay ciwaankiisa Twitter-ka kuma uusan sheegin sababta loo beegsanayo Ciise Tarabuun iyo inuu ka tirsan yahay dagaalamayaasha shabaab wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo Ducaale ayaa war uu soo saaray 19 Juun 2017 waxa uu ku sheegay in ciidanka amniga ay soo qabteen Cabdiwahaab Khaliif Axmed Ciise Tarabuun oo ahaa madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka Banaadir Ciise Tarabuun waxaa lagu qabtay howlgalay ciidanka boolisku ka sameeyay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho wasiir Ducaale waxa uu sheegay in cadaaladda la soo taagi doono Ciise Tarabuun farqi ayaa u dhaxeeya magaca saxda ah ee dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ku sheegeen Ciise Tarabuun Kenya ayaa magaciisa ku sheegtay Cabdiwaahid Khaliif Cabdi Ilyas halka ay dowladda Soomaaliya magaciisa ku sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Axmed balse waxay ku mideysan yihiin magaca Ciise Tarabuun haddaba haddii ay sax u yahay warka Kenya waxa la isweydiinayaa sidee Ciise Tarabuun uga baxsaday gacanta hay'adaha ammaanka Soomaaliya iyadoo oo aan cadaalad la soo taagin qaraxga saara geystay ayaa la eegtay ciidamo ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM oo marayay isgoyska Soosay magaalada Muqdisho ciidamada qaraxa la eegtay oo ka soo ambabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa mar qura la kulmay qarax xoogan oo ahaa nooca dhulka lagu aaso oo haleelay gaadiidkii ay la socdeen mid ka mid ah qaraxaas ayaa si weyn looga maqlay degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegeen qarax uu ahaa miino oo lagu aasay wadada dhinaceeda una haleelay mid ka mid ah kolonyada gaadiid ay wateen ciidanka AMISOM intaas kadib ciidamada qaraxa la eegtay ayaa furay rasaas badan waxaana la sheegay rasaastaasi ay ku geeriyoodeen 2 qof oo shacab ah mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay ayaa sharaxaya sida ay wax uga dhaceen xaafadda Soos walaal waxa ka dhacay halkaas qaraxa lagu eegtay ciidamada Ugandaska iyo Burundi ciidamada AMISOM kadib markii qaraxa lagu eegtay isgoyska Soos kadib waxa qaraxay waxay ku noqdeen ma garanayno kadib waxay fureen xambadii markay fureen waxa ku dhintay nin iyo naag ku dhintay dad kale way ku dhaawacmeen haatan waxay ku sugayeen suuqa xoolaha ilaa Baarjowhar ilaa isgoyska Soos ilaa suuqa iyo dukaamada iyo furna iyo baabuurtii oo iska taal laga soo kala cararay haddana waxa soo tooy kara malaha hadda waxaana indhahayga saaray 2 qof oo nin iyo naag ah nin geerish ka shaqeynayay geerish xareed geerish liira ka shaqeynayay iyo naag kale oo ayada maqaayad ku leedahay halkaasi labadaas ku dhintay dad kale oo islaamiga marayna ku dhaawacmeen marka la eegtay xaafadaha ku jira marka soo baxna waxa aragnay waxa badridaaya ma jirtay ilaa haatan wax war oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM ee Soomaaliya hasaatee waxa jira qaraxyo dhowr mar sidaan oo kale isla xaafadaasi lagu eegtay ciidamada AMISOM ciidamada militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inay toogteen rag miinooyin ku aasay duleedka degmada Balcad ee Shabeellada Dhexe saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan Balcad ayaa sheegay inay dileen rag miinooyin ku aasay inta u dhaxaysa Balcad iyo Gololey ma jiro faahfaahintaas dheer oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Balcad ee Shabeellada Dhexe wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa muddooyinkii dambe waxa ka dhacay qaraxyo la beegsanaya ciidamada xoogga iyo kuwa AMISOM oo wadadaasi ku safra Somaliland ayaa go'aanka madambeysa ka gaartay kiiska wariye Coldoon maxkamadda racfaanka Somaliland ayaa go'aanka madambeysa ka gaartay dacwad loo haystay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddooyinkii la soo dhaafay ku xirnaa xabsiga magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi maxkamadda racfaanka ayaa tan gobolka Maroodijeex ku raacday xukunkii 3 sano iyo 6 bilood ay hore ugu riday Coldoon
wararku ayaa sheegay in fadhiga maxkamaddu uusan joogin wax qareen ah oo difaacaya wariye Coldoon taas oo ay walaac xoogan ka muujiyeen qoyskiisa. Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ku jira in ka badan 6 bilood oo xabsi ah ayaa loo haystaa eedeymo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliland iyo dugsiga Abaarso oo ku yaala gudaha magaalada Hargeysa. markaana daawadayaal warkii dibadda afhayeenka Koongareeska Mareykanka ayaa sheegtay in shacabku ku taageersan yihiin xilka qaadista Trump. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay in aragtida dadweynaha Mareykanka ay ku taageersan tahay baaritaanka xilka xayuubinta madaxweyne Donald Trump. Pelosi ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday inay taageerayso baaritaanka lagu sameynayo in madaxweynuhu sharcigu jabiyay isla markaana uu mudan yahay in xilka laga qaado. Baaritaanka ayaa bilowday kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in Trump uu taleefanku kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo ku cadaadiyay inuu baaro ninkii doorashada kula tartamay 2020. madaxweyne Trump oo cadaadis ka saaran uu sii kordhayo ayaa dhankiisa sheegay in wadanka uu wajahayo halis aan horay u soo marin wuxuuna dimuqraadiyiintu ku eedeeyay inay ku xadgudbayaan xorriyadiisa asaasiga ah. sidoo kale waxa uu sheegay in sababta ugu weyn loo bartilmaameedsanaya ay tahay halganka uu wadanku ugu jiro. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan galcad media news.